Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sunlight College. Kusoo dhawaada Sunlight College and teacher Flora again. And inshallah maanta waxaynu qaadan doonaa buug cusub oo la dhaho English for Everyone. English for Everyone. Marka ciwaanka buugga waa kaas. Waxaa la dhahaa English for Everyone. Inshallah buuggaas oo cusub baynu qaadanaynaa. All for beginners ardayda beginnerka level 1ka loogu talagalay. Sidoo kale buuggan level 1 kaliya caawin maayo sidoo kale wuxuu caawin karayaa ardayda sare intay qaataan bay iyagu iska soo akhrisan karayaan oo aad iyo aad buu anfacaya kuwan beginnerka insha Allahna macallimiinta insha Allah ka caawinaysa oo u dhigaysa u soo akhriyi doontaan. Buuggan waxyaabo fara badan uu ka caawinaya vocabulary-skaaga ayuu aad iyo aad u dhisayaa. We always talk about it. Badanaa waanu ka hadalnaa vocabularies inay aad iyo aad important u yihiin muhiim u yihiin. Sababta waxa weeye haddaan vocabularies iyo erayaad haysan dee waxaan aad ku hadlaysaa waa eraya Soomaaliga hadda markaad ku hadlayso jinna ku hadli maysa insina ku hadli maysa laakiinse erayaad ku hadlaysaa. Erayadu aad iyo aad bay important u yihiin inaad eraya taqaanaa. Erayo fara badan baad insha Allah ka baran doontaan buuggan. Buugga waxaa la dhahaa English for Everyone. Beginnerka ahna macallimiinta insha Allah ay ka dhigan doonaan ardayda advance-ka intay qaataan waxaa la dhahaa buugga a complete self-study program. A complete self-study program. Book completely like si dhammaystiran self-study oo aad u asbari karayso way. Marka ardayda advance-ka iyagu asbari karayaan oo iyaga iska akhrisan kara. Alright, English for Everyone course book. Buugga magaciisu waa English for Everyone course book. Waxaasoo dhan baan ku baran vocabularies waxa xaggaa yaalo oo dhan waxyaabihii la xiriira hadday xayawaanadii noqoto hadday noqoto shaqooyinkii haddii ay noqoto magaranaysaa cuntooyinkii waxaasoo dhan baan insha Allah ku baran doonaa. Alright, let's get started. Contentska haddaynu eegno casharka koowaad waa introducing yourself. Introducing yourself naftaada bal isqeex oo kale weeye isqeex cidaad tahay noo sheeg ayaa introduce yourself la dhahay. Okay, insha Allah introducing yourself waxaynu ku baran doonaa saddexdan wax oo ah maxay new language luqad cusub yacni waxaa looga jeedaa inaad baran doono prepositions sida to be oo kale. Marka waynu fahmi doonaa insha Allah xiisadeena ku fahmi doonaa xidhiidhayaasheena ku baran doono. Waxaynu kaloo ku baran doonaa vocabularies erayo names and letters saa loo dhaho magacyada iyo xarfaha sida magacyada loo isbaalgareeyo loo yeedhiyo. Waxaynu ku baran doonaa kale new skill xirfad cusub saying your name sida magacaaga oo oranayso. Waxaasoo dhan insha Allah ku baran doonaa. Alright, so let's get started. Xiisadeena iskaga gudubno. Alright, so casharkeena koowaad waa introducing yourself sida naftaada u qeexi lahayd ama yacni aad qof kale ugu sheegi lahayd qofka aad tahay ayaa la dhahaa introducing yourself isqeex inaad sheegto cidda aad tahay xagaad ku dhalatay shaqadaada. Saca waxaa la yiri you can greet people by saying waxa aad qofka ku salaami karaysaa adigoo oran karaya hello oo kale or hi na oran karaysaa hello na oran karaysaa qofka marka saa u kulantaan horta inagu iska islaam ahaan waxaad ku oranaysaa assalaamu calaykum then hi waad ku xigsiin karaysaa ama hello waad ku xigsiin karaysaa amaba like yacni qof kaloo gaal ah dad la kulantaan assalaamu calaykum ba garanay hello amaad ku dhahaysaa ama hi. Introduce yourself using naftaada ku qeex adigoo isticmaalaya I am adigoo isticmaalaya maxay I am isticmaalaya naftaada qeex. You might also need to spell sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad u baahato to spell out the letters of your names. To spell out the letters. The letters waa lahjadeen caadi letters hadda tiraahdo American. So inaad marmarka qaar u baahato inaad xarfihii yeedhiso waynu arki doonaa xarfaha yeedhiskooda waxa looga jeedo of your name magacaaga xarfihii magacaaga waxaa laga yaabaa inuu qofku dhaho yeedhi tusaale Ahmed loogu dhaho kale qofkii markaad ku leedahay qofkina ku dhaho spell out the letters of your name. Waxaan kugu tuso Ahmed waa A H M E D sidaas oo kale ayaa la dhahaa spell out the letter of your names. Okay, so aynu gudubno unit 1 casharkiisa koowaad aynu gudubno. Key language saying your name furayaasha sidaad u oran lahayd magacaaga hebel baa la dhahaa oo kale
sidaad u oran lahayd furayaashooda ayaan xaggan aad ku dhigan doontaa. There are different ways of greeting someone. Waxaa jira siyaabo fara badan oo aad qofka u salaami karayso. And introducing yourself, sidoo kalena aad maxay naftaada u introduce garayn karto. Alright, this can be a formal or informal greeting. So maxaa lagu yiri waxay noqon karayaan maxay kuwo formal ah iyo informal. Formal iyo informal video waan ka sameynay, waan idin soo diri doonaa insha Allah. Haddaad aragteen alxamdulillah, haddii kaansan insha Allah waan kuu soo diri doonaa. Formal waxaa la dhahaa hadalka caadiga iyo xishmada leh aad waalidka u isticmaasho. Informalna waa hadalka asxaabta ka dhexeeya, yani ereyada asxaabta ka dhexeeya. So ereyada asxaabtaada kaaga la dhexeeya dee waalidka u isticmaali karamaysa. Kuwaasaa la dhahaa formal iyo informal. Aynu isla eegno kuwa formalka. Hello, I am Leila. Hello, I am Leila. Waxaan ahay Leila. Hello, I am Leila. Hello waaba Soomaali ma macnayn karayno, laakiin I am Leila. Way bartan maxaa lagu yiri tan aan isla eegno. You can use, waxaad isticmaali karaysaa I am plus your name to introduce yourself. Waxaad isticmaali karaysaa I am adiga oo ku daraya maxay plus your name, magacaaga ku daraya ayaad naftaada ku maxay introduce garayn karaysaa. Waayo xagan aan isla eegno. This is a informal greeting. Tanna waa informalka, waa hadalkii asxaabta oo kale ka dhexeeya. Sida imka hi, my name is Joy. Hi, my name is Joy. Magacaygu waa Joy. Magacaygu waa Joy. So hi-dan waa waxa weeye informal. Hi-daas waa informal. Hello-danna waa maxay formal. Kan waaye maxaa lagu yiri qoraalka yar hoose. Qoraalka yar hoose aan calaamadiyo waxaa lagu yiri you can also use, waxaad sidoo kale isticmaali karaysaa my name plus your name. Waxaad isticmaali karaysaa adigoo leh my name, magacaygu si xagan ku aragnayba, plus your name, kadibna magacaaga ku sii daraysaa. My name intaad tiraahdo kadibna magacaaga dhahaysaa. Sida my name haye plus your name. Magacaaguna wuxuu Ahmed, Hawa, Khalid, whatever waxay doontaa. To introduce yourself, naftaada intaa waad ku qeexi karaysaa. Maxaa lagu yiri my name is Joy. Magacaaga plus name waad ku qeexi karaysaa naftaada. Sidoo kale xaggan haddaan soo eegtaan xagga waxaad ku qeexi karaysaa lagu yiri I am plus your name, adigoo I am isticmaalaya kadibna magacaaga ku daray. Waayaan ka socono. Other ways to say your name, siyaabo kale oo nafta aad magacaaga u sheegi karayso. Siyaabo kale oo magacaaga u sheegi karayso. In conversational English, wada sheekaysiyada English, speakers often use, dadka badanaa hadlaa waxay isticmaalaan contractions oo ah yani in ereyadii lasku soo gaabiyo lasku soo xidho. These are shortened versions of pairs of words. Kuwan waxa weeye ereyo lasku soo ururiyay. Ereyada aad isticmaalayna marka hore oo yani lasku soo ururiyay ayaa la dhahaa constructions. Sida I am Leila. I am Leila waa caadi, waa hadalkii caadi sidiisa loo yiri. Laakiin marka construction laga dhigo lasku soo ururiyo waxa weeye am Leila. Am Leila weeye. Why my name is Joy. My name is Joy marka waa hadalka caadi yahay waa noocaas, laakiin se marka construction lagu sameeyo ee lasku soo ururiyo waxaa lagu yiraahdaa native speakers ama speakers dadkan wada hadlaya English ku hadla waxaas constructions kaas isticmaalaan. Sida my name is Joy. Magacaygu waa Joy. My name is Joy. My name is Joy. My name is Joy. Marka tan waxa weeye tan sare waa maxay? Waa my name is Joy. Hoosena waa maxay? My name is Joy. My name is Joy. Marka hadalka lasku soo ururiyo lasoo gaagaabiyo waxaa la dhahaa maxay? Constructions. You can contract. Xagan waxaa lagu yiri qoraalka yar hoose. You can contract, waxaad isku soo ururin karaysaa I am to am. I am ba waxaad ka dhigi karaysaa am. Marka I am waa hadalkii caadi, laakiinse marka lasku soo ururiyo waa am lasoo gaabiyo. Bartan kale waxaa lagu yiri you can contract my name is. My name is ayaa marka lasku soo ururiyo waxaad ka dhigaysaa my names. Marka lasku soo ururiyo waxaad ka dhigaysaa names. My names. My name is xagaa oran lahayd waxaad dhahaysaa my names. Contractionskana waxaan rajaynayaa in la fahmay constructionska. Aan u gudubno unit 1keena casharkiisa saddexaad. Aan u gudubno how to form saying your name, sida loo abuuro magacaaga markaad oranayso. Grammarkeedu badanaa waa wada qaacidooyin, sida xisaabtu qaacidooyin leeyahay. Qaacidooyinkaasaa wada maraysaa. Tusaale bartan aynu isla eegno. So qaacidada marka intaanad magacaaga oran qaacidada u maraysaa waxa weeye subject
to be to be na waxaa la dhahaa to be waxaa la isku dhahaa haye oo maxay raacdaa I raacda haye is haye iyo r iyo is iyo r taas ayaa la isku dhahaa maxay verb to be waayo amtu maxay raacdaa amtu waxay raacdaa I oo kaliya subjectiyada marka pronounska la eegayo amtu waxay raacdaa I-da istu waxay raacdaa maxay he iyo she iyo it rtuna waxay raacdaa they iyo we iyo you oo kaliya dadaasay raacdaa qaacidada aan isla eegno qaacidada intaan magacaaga oran waa subject haye subject oo ah maxay ficil sameeye subject waa ficil sameeye my name waa adigii adaas ka hadlay adigaa ficil sameeya my name magacaygu haye to be baa ku xigay to be waxa weeye maxay ficil caawiye ama fal caawiya la dhahaa to be oo maxay noqonaysaa is my name is haye kadibna name ayaad ku xigsiinaysaa oo ah maxay magacii Layla my name is Layla alright si kale haddaan u dhigno subjectigii waa maxay waa I ficil sameeyihii waa maxay waxa weeye maxay ficil caawiye ama fal caawiyihii kadibna name baa ku xigsiinaysaa Layla hore ugu sii soconaa casharkeena bartan exercise baa lagu dhigay rewrite each sentence or sentence in its contracted form waxaa lagu yiri sentence kastaba dib u qor adigoo dib u qoraya maxay sentencekii ah contracted horeynu uga soo hadalnay contracted waa maxay in lasoo gaabiyo maxay hadalkii in lasku soo xidho lasoo gaabiyo my name is Jack tusaale my name is Jack waa exercise idinka kasoo shaqeyn doona my name is Jack magacaygu waa Jack marka lasoo gaabiyo maxay noqotay my name is Jack marka hore my name is Jack laakiin hadda my name is Jack waxaa idinka insha Allah kasoo shaqeyn doona waxaan oo dhan magacyo dumarba oo kala baxaya magacyo rag idinka kasoo shaqeyn doona insha Allah isku soo gaagaabin doona tan waa kan magacyadii iyagoo yaala Charlie marka waa maxay waa nin Catherine waa gabadh Joseph waa nin okay bartaasaad ka eegan doontaan insha Allah Elliot Oliver Ruli